anaan dugsi gelin aqoonta anaan la tartamin asaagay anaan waalidkay adeecin anaa loo is ehday waxa jirta hadda ka hor oraha aan sameeyay oo ahayd dadaal laakiin ha u dadaalin inaad qof reebtay waxa u dadaashaa inaad qof isla soo baxdaan yani waxaan ka waday qof walaalkaaga tusaale ahaan hadda adigoo kale baa laga yaabaa inaan iskuul wada dhigano amba aan kambani wada leenahay amba adiguna aad kambani leedahay ana kambani leeyahay haddii ma wanaagsana aqliyadda caadigaana uma wanaagsana xag ilaahina uma wanaagsana inaan mar walba ku hamiyo kuna dadaalo sidii aan kanaac kambanigiisa u damin lahaa kayguna u soo bixi lahaa xataa haddii aan ku dadaalana kayga waxaa laga yaabaa inuu dabakan kanaacna u soo baxo ama حتى أنت صوب حكيجي أو كاجو دمو وحلاقي يا بينا هالك أنا كو قصارة أو مركز أيد معجزة كلا يقول عضو مركا معناها قف قوة في عنتها إنه دلالو الساجس لا ترتمو لكن وإنه لا ترتمو سيدو كلا إنه إسلا صباحان أساجس أو غفلوا الكيس أو صوماليات وأصلا قف كاس صباح أسنا وصباحه مركا حنقول هو قلت ساليني قفكم مركو وقت كيس هايستو هذا مرحلة أنا كنت جاجنا يقول إلهي يقدر كيك فائدته أنا قلنا إنها نقول دقيقة مرحلة ده أنا كل قفكم إنه كيف فائدته baa muhiim ah si marxaladda gabowga markuu u gaaro uusan ula kulmin shalaygaas baan ku tusaaleynayaa mid reaction kan ku hormaraya horta falcelinta dadka iiga imaata waa mid mar walba ay dhiirigelisa aadayna ugu mahadsanyihiin dadkayga maadaama ay ugu dhiirigeliyaan arrintan iyo arrin la mid ah dabcan waana waxa shidaalka koobaad isiiya ee aan ku dhaqaaqi lahaa tan marka ah caqabadaha mar walba la kulmo caqabadaha aan la kulmo horta caqabada ugu horeysa oo aan la kulmo waxay tahay inaan horta wixii inaan curiyo caqabad ah marka hore tusaale ahaan caqabadu waxay ka imaan kartaa shay markaan rabo inaan curiyo waxaan u baahanahay inaan marka hore helo fikirkii aan ka curin lahaa tusaale ahaan haddaan damco inaan gabiyo inta soo ordo leerka halkan ka daaran iskama gabiyi karo ma dhigi karo leer baato leerkan baa tahay ma dhigi karo laakiin waa inaan ogahay leerka horta manfuuca uu leeyahay ama anfaacada dadka ay ka helaan waa inaan ogahay يعني مهمة أولية يركو لا يركو أنا أما يقير جلسه أما أكنحه وأنا عندها هذا حنته صراحة حتى لا يركو أكله هذا رأينا عبره وأنا أمره إنه إفتين بعد كنتا إلهي بنوك بركي ما شاء الله بعته أما أنا إندي فانا قترت الله قادم حان وأنا عنده مكتة وأنا شيء كانوا مركا عقبت أقول رئيس واحد هاي فكرك وعقبت halkii aan ka raadiyo caqabad saaweyn ma ahan laakiin waa inaan sheego maadaama ay caqabad tahay oo fikirku inaan inta curiyo aan isla markaba soo dhigo waxay ugu qaadataa wax 10 daqiiqo ka yar inaan isla shay dhameystiran ka sameeyana nus saac bay ugu qaadataa oo aan full barnaamij inta ka sameeyo aan u diyaariyo markaas in la duubo caqabada labaad waxay tahay oo ay haysata يعني ومد حق ربيعة يعني وإن حق حفظ كلا حاجة اسمه يرى هبونينه حلقة بشيء إنه ما أنت يربيه يعني أبونا بدن بأشري أو سداس أهيد أو هراء أو وحقور يشتري وحقور سائدها لكن إنه حفظ كودن وآد ويرى عقبات انقلبك أو يعني إن أنا اسكت لما يسترنين وأنا هيسنين قلب لما يسترن صالحان إن كاميرا إن لايركي إن ميكروفونكي إن لابتوبكي إن ألعبتي وحلوة تقرين لها كله لكن حد باهي ده إما هيسو الحمد لله وبدل كذي إن إلهي بفرج يصدري ما دام الشيء كان إن ما كان شيء كان بلعبي وحن تلافكي جاهين ما هيستن وأن كوب بلعبي تلافكي جاهستي وليبه تلفونka si loo isticmaalo markaas ma aan garanay khibradeeda ma lahayn laakiin uu dhabar adayga inaan telefonkayga wax ku duubo haddana heer waxaan joogaa qof walba ii heegan yahay oo dhalinyaro badan oo asxaabtayda ay caawiyaan oo yani ay mar walba ay duubaan marka anoo qalabkii haysan haddana bedelkeeda Ilaahay isiiyay oo ah in aan asxaabtaydu ay iga saacideen laakiin waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan isku bedeli doono oo aan marxaladda hadda aan joogo marxalad ka si fiican aan gali doono sidoo kale dhanka waqtiga iyo meelaha wax lagu duubayo waa iska caqabad caadi ah laakiin ma ahan wax si u buuran oo sheekar laakiin haddii aan guud ahaanba aan afka ka xiro waxaan oran karaa hal caqabad ma haysto alxamdulillah maadaama aan maskaxdii aan ka curin lahaa haysto anigii ahna aan haysto fikirkii halkan soo bandhigi lahaa maanta haysto heer wanaagsan aan ka marayo taasna Ilaahay baa ku mahadsan
cid gooni hadda dhaqaale iga saacido oo dhahda hanada dhaqaalahaas raba inaad bahashaas intaas ku baxaysa marka waa inaad intaas geliso intaasna waa inaad banki hebel ka soo doonato sheegaas waa inaad qaato halka kale ma jirto laakiin markay imaato dhanka qalabka oo kale inay saacado inay markay imaato sida aan sheegayba dhalinyaro aad fara badan qofkii aan dadka u mahad celinay Ilaahay subhanahu wa ta'ala u mahad celiyo dabcan dhalinyaro aad u fara badan oo aad aan weliga hilmaami doonin qayb ha ka ahaado qofkii ugu horeeyay oo wax iga duuba oo yani ila soo bandhiga oo inaan maxaratole aan barnaamijkan aan ku socdo qayb ha ka ahaade dhalinyaro aad u fara badan oo Cabdalla Kanacmo oo qayb ka yahay baa adigu iga caawisa inaan barnaamijyada sameeyo waxa igu saameyn badnayd oo mar walba aan dhageysto aan yara dareema barnaamij waxa jiray horta aad dadku jeclaadeen oo markaan ka soo haro dhanka dhiirigelinta oo ahayd ruuxa maanta kugu diga bari daacad ha u noqon ha u danseegin oo noqon qof damiirku meelyahay dadnimada qofka hadii la qasab hay isku daba dhigin duuduub ku dhaafkii aan kula dadaalayn la dareen jacayl ruux kaliya ku daawada barnaamij jacayl u ahaa oo ay habluhu aad u jeclaadeen dabcan oo meel walba gaaray barnaamijkaas oo hadda la igu bartay Saaid barnaamijkaas baa jiray oo aad saxmeyn igu lahaa oo markaas dareen aan qof aan ka sameeyay dareenkiis anigana i bedelay laakiin barnaamijka baalashka baa mar walba aniga wuxuu yahay dareenkayga koobaad aadna u qeexa mar walba horta halaburka ugu badnaa oo dhalinyaro ah horta maanta yani Soomaaliya hadaan joogi lahaa kale waa hayn lahaa halka dhalinyaro badan oo hal abuur Saaid uma arkin oo yani wax hal abuuraysa maana arkin oo hadda aan kulano laakiin dhalinyaro badan oo yani hal abuur suugaaneed baan ka hadlayaa laakiin hal abuurka caadiga nolosha tusaalahan dhanka waxbarashada oo kale dhalinyaro wax baratay oo waxbarashada ku fiican way jiraan oo meelo badan aan ku kulano sida maktabadaha oo kale aan ku kulanaa hadda inkastoo kulamadii caadiga ahaaba hadda ay yaraadeen maadaama cudurkan uu hadda wadamada si uga jiro oo meel la isugu tag jiray yaraadeen haddana dhalinyaro badan oo aan wada sheekaysano oo qaar kamid ah xataa aan ra'yiga aan ka helo ra'yigu keligay ma ka sameeyaan anigu ra'yiga waxaan ka sameeyaa qof baan la sheekaystaa waxa laga yaabaa arrin uu iga sheekayo kale inaan wax ka sameeyo ama waxa laga yaabaa intuu arrimahayga aan ka sheekay mar walba intuu isku daawaday inuu ii imaado dhaho niyo arrintan ka hor hadda wax ka samayso marka dhalinyaro fara badan oo hal abuur dhanka aqoonta ah iyo dhanka ganacsiga ah iyo meel walba dabcan ka dhisan way jiraan oo wada kulano mar walbana aan dabcan jecelahay inaan wax ka sameeyo waxooda laakiin dhalinyaro abwaana hadda aan la kulmo hadda ma jiraan maya cid hadda gooni aan urur leenahay oo gooni hadda ma jiro oo aan anigu si gooni hadda aan ula shaqeeyo way jiraan ururo iska caadi ah oo iska ururo samafal iska caadi oo aan dabcan anigu si gooni hadda aan mid gaar aan uga tirsanayn laakiin ururo kuwa dhaqameed baa jira oo wadankan oo joogo oo aan mid walba u tago oo aan kuwa mid walba qayb ka ahay oo aan hadii aan hadal ka soo jeedinayo kara hadii barnaamij markaas wacyi oo kala aan wado hadii barnaamij ay iga baxdaan salahan in aan u qabto oo caadi ah way jiraan dhalinyaro u tagto laakiin hadda urur aan si gooni u tirsan ma jiro horta qof aan hal abuur lahayn ma jiro qof walba inuu ka shaqeysiyo baa muhiim ah qofku inuu naftiisa inuu ka adkaado waa hal abuur uu qofku leeyahay macnaha ka adkaado waxaan ula jeedaa dhan cibaadada waa meeshada oo qof walba cibaadada halka heerka Ilaahay ka gaarsiiyo buu cibaadeysan karaa qof walbana Ilaahay baa taan ugu wada amray laakiin ka adkaanta nafta waxaan u jeedaa qofku waxa la yiraahdo comfort zone-ka ama nolosha caadiga ah oo qofku ku qanacsan yahay tusaalahan qofku inuu telefixiisa iska haysto habeenkii inuu gurigiisa 3 saac imaado oo kale telefonka iska qabsado 7 saac 8 saac ka seexda telefonka subaxdii iska soo kaco 4 saac 5 saac waxaas oo kale markuu qofku nafsadiisa haduu kaga adkaado oo uu ka dhigo nolol caadi oo la maamuli karo tusaalahan qofku gurigiisa markuu imaado inuu jadwal u sameeyo telefonkiisa uu ku isticmaalo jadwal uu ku saacido jadwal uu wax ku akhristo iyo jadwal uu waqtigiisa cibaadada uu kaga bogto haduu u sameeyo qofku waa hal abuur qof walba hal abuur la marka laakiin qof walba sidoo isticmaalo way hal abuurka hal abuurku yani qof dadku inta badan u yaqaan qofka hal abuur marka loo qof waxa ku soo dhacaysa gabya ba maskaxdiisa ku soo dhacaysa laakiin maaha qofka ganacsadaha waa hal abuur haduu ganacsi leeyahay laakiin dhalinyarada dhanka macnaha meesha aan u jeedno ama muqaddaskan uu hadda yahay dabcan waa dhanka arrimaha bulshada iyo suugaanta iyo dhiirigelinta dabcan bay su'aashaada kulli ay duqeynaysaa sidaan dareemayo marka dhalinyarada dhankaas aan hal abuurka lahayn oo aan wali isku dayin dabcan leh laakiin aan isku dayin inay hal abuurka sameeyaan
waxaan ku boorinaya dabcan oo message-kayga aan u diray oo yahay qof walba intaad ka gaarto adigu hal abuur inaad ka samayso xataa hal abuur waxaad isku daydaa inaad ka samayso adiga qiso kugu dhacday noloshaada 10 sano ka hor wax aad soo martay ama waalidkaayo dhintay qiso aad ka samaysana Allah ka dhigay inaad wax noloshaada wixii aad ka baratay inta aad soo jirtay inaan qof jiray baa tahay oo intaas noolaaba tahay wixii aad baratay wax yarna Allah ka dhigay iskuulkaaga xataa adoo dhiganay wax ku soo maray ama jacayl baa noqotay daartida wax sameey si naftaada relief ay u dareento ama adiga waxa dareemaysa uga soo baxdo kan hal abuurka leh raba inuu soo saaro laakiin fursad u waayay amba u waayay meel ku soo bandhigo ama sidoo kale u waayay awood qalabkiina aan haysan sidoo kalena ka cabsanay inuu wixii soo bandhigo laakiin ay ku jiraan inuu wax soo bandhigo waxaan ku boorinayaa koow horta naftaada inaad ka cabsan marka hore naftaada inaad guriga ku dhiirigelisid inta guriga joogtid aad isku daydo naftaada inaad dhiirigeliso naftaada u sheegto inay dadka wax u sheegi karto marka naftaada ka dhaadhicisay inaad dadka wax u sheegi kartid waxaad isku daydaa wax kasta oo caqabad kasta qofku waa maraa laakiin waa qof walba soo wajaho iyo sidoo uga jawaabo caqabada hadaad jaranjarada gurigan dabcan markii la dhisayay jaranjarada hadda aan gurigan ku soo fuulay markaan soo fuulayay ama ulajeedka loo dhisay wuxuu ahaa guriga in lagu koro laakiin jaranjaradu ujeedku ma ahayn ujeedku waxa koridda guriga markaad guri tusaale ahaan 10 biyaana rabto inaad korto caqabada ugu horeysa ka hor waa inaad neef tuurto abaarna waa inaad lugayso dad lugaha la aydna oo lugaha ku xanuunayeen inaad abaar farfariisto ama istaagto waa caqabad laakiin hadaad dhaxdo guriga dhanba aan uga samray inaan fuulin maadaama aan neef tuurayo waa caqabad aan laga baxayn taasi يعني عقبض waxa inaad guriga fuuli weydo laakiin hadii ay ka adkaato caqabadaas oo dhahdo gurigan ma fuuli kari aad iska dhaadhiciso adigu waa caqabad kale oo adigu man made wax la yiraahdo waa ama adigu naftaada u sameysay marka qof walba caqabad uu la kulmaa laakiin waa qof walba soo wajaho hadaa maanta isku dayo tusaale ahaan shay baa i hortaagan ama midkan in halka ka qaado xagga dhigaa rabaa hadii maanta dhan aan ku hayo miiskan waan qaadaya xaggan dhigaya laakiin aanan qaadin miiski bartiisa oo leeyahay waa xaqiiqa hadii aan shay kale halka u la baahnaa inuu ii yaalo shaygaas yani miiska aan meesha ka qaado shayga ma dhigi karo marka hadii aan dhaho waan ka qaadayaa laakiin aanan ka qaadin waa caqabad laakiin hadaan ka qaado xaqii dhigo caqabad ima haysato adeer meesheedu waa mari karaa miiskaygana waa dhigan karaa marka macnaha muhiimadda aan ka leeyahay waxay tahay qof walba caqabad uu la kulmaayo waa sida uu uga jawaabo isla markaasna uu caqabada isugu dayo inuu uga gudbo marka waxaan leeyahay qof walba oo caqabad haysato oo rabay inuu wax soo bandhigo caqabada ugu horeysa oo ka haysto waxa waa naftaada horta aaminsanayn inaad waxba soo bandhigi karin baad ogeyn is ogeysiin naftaadana ka dhaadhicina wax bandhigi kartid markaas waxa isku daydaa inaad wax samaysid shayga qofka ugu horeeya ka faa'iiday waxa sameynayso waa aniga markii aan wax qoro waxa dareemaa xanuunku inuu iga baxo tusaale ahaan baahiba ay haysa dhanka nolosha ah shay baan ka qoray haddaan markaa shayga qoro waxaan arkayaa anigii caafimaaday oo shaygii hilmaamay macnaha caafimaadku ma ahan qofku inuu shayga heli haduu qoro ha shayga hadii Ilaahay ku qoro waa heli laakiin muhiimadda ugu horeysa waxay tahay stress horta iyo buuqa uu kugu furay shaygu iska saar adiga banaanka horta dhig shayga Ilaahay ba ama keenin ama ka qaadin haduu khayr ku yahay laga yaabo in lagu keeno haduu shar ku yahay Ilaahay ku dhaafiyo waxa jirta aniga waxaan caado u leeyahay shay talahan inta ugu badan wax ku qoro waxa taleefankayga meesha ugu badan wax ku qoro ah note-ka taleefankayga wax ku qoraa hadaan ma aawada ma waa bil xaqiiqatan ma aha waxaan yani wax aan qurxinay ma hadalan qurxinay ma waa hadal aan bil xaqiiqa yani hadal waxa jira mar jirax laakiin aad qurxinaysa si qofka uga dhaadhaco laakiin kan ma aha mid waa mid aniga iga dhaadhacay waxa jiro hadii wax igu soo dhacaan anoo chief isku diyaariyay markaan chief isku diyaarin taleefanka waa iska damiyaa meel baan iska dhigaa waa iska seexdaa si aan waqtigeyga u qaato oo nafteyda ay yani waqti u qaadato marka wax dhacda hadii shay ugu soo dhaco markaas inaan wax ka sameeyo horta qub waxa igu soo dhacaysa in salahan haday ahayd maansa hadaan isku dayay inaan ka sameeyo waxa igu soo dhacaysa inta ugu horeysa maansada isla fadhigaas isla meeshaas aan jiifanay igu soo dhacaysa salahan in paragraph dhan baa igu soo dhacaya ama hal safxad oo maansa igu soo dhacaysa halkaas marba oo shayga ku saabsan hadii aanan qorin oo aan isku day inaan ka dhaga adaygo ma seexan kara halkaas ay xanuunaysa aniga ma seexan hurdada habeenkaas gama way iga dhamaanaysa ilaa inta soo kacaan taleefankayga daaro aan qoro ma seexanayo aniga waxa aniga igu dhaxnool yani aniga caadi ahaan mar walba oo la kulmo sida caadiga hadii shaygaas marka maadaama ay sidaas tahay kulli qof walba siba Ilaahay u sameeyay laakiin aniga sida ay tahay waxay tahay shay hadaan dabca inaan aduu igu soo dhaco inaan qoro mahana kama caafimaad karo marka qof walba waxaan ku boorinaa horta shayga marka hore qor hadii uu kugu jiro
qor haday dhabka tahay waay wax markii dhabka yihiin aad u baahantay kugu soo dhacaan wax adiga u baahnay kugu soo dhaco habeenkan markaan seexanayo alxamdulillah sida aan bilaab inaan dad ama dhiirigeliyo ama barnaamij aan sameeyo marka habeen walba seexanayo ugu yaraan waxa igu soo dhacay inaan jacayl wax ka sameeyo markaan seexanayo ugu yaraan waa igu soo dhaca hadaan qorina ma seexan kara habeenkaas marka qofka bini'aadanka waxba ku soo dhacaan waa inuu qoro naftiisa aamino dadkana uga faa'iideeyo qof walba hal abuurana dabcan midaan u sheegay waxay tahay marka hore ilaahay ku xamdi inaan naf leedahay qof aan bini'aadan tahay qof muhiim ah tahay qof bulshada ay ka faa'iidi kartaan inaad tahay iskuna day inaad dadka uga faa'iideyso maanse aadan u jeclahay oo 2018kii aan jeclahay inay ahayd markaan sameeyay baa jirta ama 2019 bilowgiisa inay ahayd baan jeclahay maasada waxa la yiraahdaa naf koris baa la yiraahdaa ama han koris baa la yiraahdaa magaceeda waxay leedahay u neefso sidii naflihii u nuurso sidii nalkii u naaxso sidii naqi ha noqon nacab nolosha dila naf baad noloshaada iyo u tahay noolaha kalaba cadceedda nasiixada lixaadka naruurada awlaadda nasiinada hantida noocyada xardhani rabbaa noo wada nasixay nasiiyo nooga dhigay nusqaan aan lagu nagaan hantidu waa nusqaan aad ku nagaanayn nisbee sidii nisbee noloshaada dhami inay taal naxash korkiis shukriga waa lagu nastaa dulqaad baa lagu nabdaa waxsiin baa lagu nuglaa nagaanshana lagu helaa xurmadu waa nolosha guud naflaho kaa nabadgalana akhlaaqday nuurisaa dadka ibnaadanka inay kaa nabadgalaan haddii aadan adigu waxba tarayn oo aadan waxba siinayn dhibkaaga ha ka nabadgalaan taasa aad muhiim u ah xurmadu waa nolosha guud inaad dadka xurmaysano waa nolosha dhan bayba ku saabsan tahay adigoo dhan ma hagaagaysa dadka xurmaysid